بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kasta oo joogto ad muuqaalkan ka daawanayso, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Aadan. Markale waxaad ku soo dhawaataan muuqaaladii aad halkan uga barateen. Maantana waxaan ku hadli doonaa hal qayb oo ka mid ah local SEO-ga. Gaar ahaan waxaan ka hadlayaa qayb aad iyo aad u anfacaysa ganacsatada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ku leh ganacsi oo runtii aan dareemayo inaysan ka faa'iideysan barnaamijka aan maanta halkan uga hadli doono. qaybta loo yaqaano Google My Business Page ama Google My Business Profile oo ah barnaamij bilaash ah oo wax lacaga aysan ganacsatada uga baxaynin, laakiin ganacsatada caalamka oo dhan ay runtii aad iyo aad uga faa'iideystaan oo computerka hadda aan ka tusi doono faa'iidada barnaamijkaasi uu leeyahay. Waxaan rabaa in aad ku soo biirtaan barnaamijkaasi bilaashka ah si markaa haddana aad u isticmaashaan teknolojiyadii aan halkan ku soo bandhigay NFC-da ee markaa qofku uu mobileka saarayo deetana uu ku siinayo review. Dad badan baa su'aal iga soo weydiiyey oo igu yiri muxuu faa'iido ah uu leeyahay review-gu. Sidoo kale waxay soo weydiiyeen maxay muhiim u tahay in Google-ka ganacsigan uu ku jiro. Marka waxaan rabaa inaan si kooban taa uga hadlo, kadibna computerka ayaan eegi doonaa, waxaan tusi doonaa ganacsatadu sida markaa ay u isticmaalayaan Google-ka iyo faa'iidada ay ka helayaan ayaan rabaa inaan halka idinka tuso. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan markaad dhammaysato, haddii aad ku shaqayso digital marketing-kana, inaad xirfadaada uga faa'iideyn doonto ganacsatada. Haddii aad adiga qudhaadu leedahay ganacsi oo muuqaalkan daawanaysana, inaad barnaamijkan wax ka fahmi doonto, deetana markaa ama adigu aad samaysan doonto oo ku soo biiri doonto, ama markaa aad qof u shaqaalaysiin doonto si shaqadaasi ay kuugu qabtaan. Marka hore waxaan rabaa inaan sharaxo maxay tahay faa'iidada uu leeyahay Google-ka, gaar ahaan qaybtan loo yaqaano Google My Business Page-ka. Ka soo qaad ganacsi ayaad magaalada ka samaysay, laakiin cidna ma oga ganacsigaasi. Waxaa laga yaabaa inaad xaysiin u samayso ganacsigaaga, amaba qof aad u sheegto, qofkaasi qofka lagu sii sheego oo sidaa ganacsigaaga uu macaamil ku helo. Laakiin taa waa sida annaga Soomaali aan u dhaqanno oo ah inaan isku sheegno ganacsiga. Laakiin adduunku wuxuu u dhaqmaa inuu isticmaalo digital marketing-ka si ganacsigiisa loo barto, oo maalin walba waxay isku dayaan inay helaan macaamil cusub ama qof ku soo biira ganacsigaasi si sanad kasta ganacsigu uu u sameeyo dhaqaale ka badan dhaqaalihii uu sanadkaas sameeyay. Mar haddii ganacsigaaga uu dhaqaale sameynayo, inaad qayb ka mid ah dhaqaalahaasi aad geliso marketing-ka waa qayb markaa kaa caawin karta in ganacsigaaga uu bulaalo oo uu kor u kaco. Waana ogtihiin maanta waxaa lagu jiraa xilligii digitalka lagu jiraa. Waa laga soo gudbay xilliyadii hore ee idaacadaha iyo telefishinada laga baafin jiray ama wargeysada lagu qori jiray ganacsi hebel baa meel laga furay. Maanta qof kasta wuxuu haystaa mobile. Adigana haddaad ganacsado tahay waxaa laga rabaa dadkaasi indhahooda ama hortooda in ganacsigaaga aad geyso. Google-ka barnaamijkan uu sameeyay ee la yiraahdo Google My Business Profile waa barnaamij bilaash ah oo Google-ku ugu talagalay in ganacsatadu ay sida Facebook aad magac ugu samaysato kale ganacsigaaga magaciisa aad halkaa geliso, addresskiisa aad geliso, telefonkiisa aad geliso, masawirada waxyaabaha cuntada ama waxyaabaha aad qabanayso halkaa aad geliso. taa marka waxay sameynaysaa in haddana review dadku ay ku siiyaan, markaana Google-ku uu kor u soo qaado ganacsigaaga oo ganacsiga kale ee intaa aan samaynin uu ka soo hormariyo. Marka waxaan rabaa inaan marka hore isla eegno bal sida ay ganacsatada kale u isticmaalayaan inaan ku tuso, kadibna waxaan rabaa inaan idinku soo xiro oo barnaamij ku soo gabagabeeyo. Iyo haddii ay dhacdo inaad leedahay laakiin aadan ogeyn cidda samaysay, wayna dhacdaa oo runtii ganacsi badan ayaa ku jira Google-ka oo milkiilayaasha ganacsigu aysan war u haynin cidda gelisay. Marka hore computerka aan eegno muxuu yahay horta waxaan ka hadlayo. Sida u jeedo hadda waxaan furnay Google-kan furnay. Ka soo qaad waxaan safar ku tagay Nairobi, aan safar ku tagay anoo meel fadhiya ama airport-ka jooga ayaan waxaan furay mobile-kayga, deetana waxaan rabaa hotelka iigu dhow ee Nairobi ku yaala inaan markaa aan booking garaysto. Ogow ma aqaano hotelkaasi, laakiin Google-ka ayaa iga caawinaya. Maxaan sameynaa? Google-kan furayaa, waxaan ku qorayaa hotels sida u jeedo in Nairobi. sida u jeedo ma dhihinin hotels Isliim ma dhihin, kaliya waxaan dhahay magaalada Nairobi ayaan iri. Markaa fiiriso waxa ii soo baxaya qoraaladan aad u jeedid ee tirada badan meesha ku jira, sida hotels in Nairobi oo kale, midda kale hotels in Nairobi near airport oo kale. qoraaladaas u jeedid oo dhan waxaa baaraya dad markaa wax adeegan raba oo raba inay ka faa'iideystaan raba
ayaa baaraya. Markan ku dhufto tii aan baaray sida u jeedo halkan waxa iiga soo baxaya qaybta koobaad. dhowr jeer ayaan halkan uga hadlay, muuqaalo badan ayaan ka sameeyay, laakiin waxaan rabaa maadaama muddooyinka dambe dhalinyaro badan igu soo biirayeen oo ku shaqeeya digital marketingka inaan mar kale dulmar ku sameeyo. wuxuu ka kooban yahay marka intaa ku dhufato 3 qayb ayuu ka kooban yahay. qaybta u koreysta waxa ku qoran sponsor ayaa ku qoran ama sponsor sida halka ugu jeedo. taa macnaheedu waxay tahay hoteeladan 1 2 3 4 5 hoteeladaas aad u jeedid ee ugu koreeya waa hoteelo dhaqaale bixinaya oo Google-ka waxay siinayaan dhaqaale si Google-ku markaasi uu kor u keeno. taa waa qayb ka mid ah xayeysiinta, laakiin tan uma soconno sababtoo ah barnaamijkan waxaan rabnaa inaan haddaan nahay ganacsatada Soomaaliyeed aan ka faa'iideysano inagoo wax lacaga aan Google-ka siinin. marka qolooyinkan lacagta haysta ee lacagta bixinaya uma soconno. mar kale aan ka hadli doonaa iyadana sida loo soo gaaro ama heerkan loo keeno. laakiin hadda waxaan baranaynaa sidee si bilaash ah oo wax lacaga aysan ganacsada ahaan kaaga bixinin sidee teknolojiyadan uga faa'iideysan kartaa ayaan ka hadlaynay. marka aan ku laabano. marka kuwan waa ka gudbaynaa. haddana qaybta kale ku xigta waxa ku qoran sponsor la yiraahdaa. iyadana waa hoteelada ugu caansan, waa taqaanaa waa booking oo kale, waa meelaha website-yada ugu caansan weeye. marka asna lacag ayuu bixinayaa aan ka gudubno. sidoo kale mid kale ku xiga waa ka gudbaynaa. meesha aan u socono marka waa qaybtan local SEO. markaan leeyahay qaybtan ciwaanka halkan looga dhigay weeye. halkan eeg marka 3dan hotel ee ugu koreysa waa 3da ugu koreeya ee ugu lacagta fiican, lacag fara badanna ka sameynaya. intaas kaliya aad u jeedid Google-ka kaliya lacag ka sameynaya. waayo ka soo qaad waxaan ahay qof ku cusub Nairobi, 3dan hotel mid kamid ah ayaa xaqiiq ah inaan bukimanayo. yaa iga caawiyay? Google-ka iga caawiyay. maxaa halkan ku qoray? waxaan ku qoray hotels in Nairobi. sidaa ayay halkan igu soo baxday. waa 3da uu Google-ku kor u soo qaaday si bilaash ah. wax lacag ah ay bixiyeen oo Google-ka ay siiyeen ma jirto. kaliya waxay lacag siiyaan dadka digital marketing ku shaqeeya oo iyagu ka caawiyay in halkan ay yimaadaan. eeg marka halkan marka wuxuu yiri waxa kale oo sii eegtaa 1335 hotel oo kale. qiyaas 1335 hotel oo Nairobi ku taala oo Google-ka ku jirta ayaa 3dan kaliya laga soo abaalmariyay oo kor la keenay. sababtuna maxay tahay in 3dani ay ka faa'iideysanayaan barnaamijkan bilaashka ah ee qof kasta oo ganacsado ah uu ka faa'iideysan karo. bogga koobaadan tageena. hadday 3dii xabo waxay ahayd 3da ugu koreysa weeye oo la abaalmariyay. laakiin haddana markaan ku sii dhufano wali waxaan sii joognaa qayb fiican, waayo bogga koowaad kuwa ku jira xataa way ka fiican yihiin kuwa ku jira bogga labaad. su'aashu waxay tahay dadkan Google-ku sidee u tartansiiyaa? keebaa buuxiyay shuruudihii anagu aan dejisanay ee laga rabay in barnaamijkani uu lahaado? shuruudahaas waxa ugu weyn 3 qayb ayaa ugu weyn oo raba halkan inaan kugu soo gudbiyo. 3da qayb ugu weyn waxa lagu soo koobaa ereyga NAB. 3daas xaraf ayaa lagu soo koobaa. NAda waxay u taagan tahay waa magacii, name af Ingiriiska ay u taagan tahay. ADa waxay u taagan tahay addresski. ba'daas dambana waxay u taagan tahay phone. waa inuu magaca si fiican u qoran yahay oo ganacsatada si fiican loo qoro. 2 waa in addresska la geliyo. 3 waa in telefoonka la geliyo. 3daas ayaa ugu muhiimsan oo kow ah. kaligood maahan ugu heeda. 3daas kaliya waa muhiim. waa 3da la rabo in marka u horeeyaba la qabto. marka hadda waxaan eegaynaa 3daas aan soo sheegay ee xaraf kuwa ugu horeeya ee 3dii hadday ugu koreysay ma buuxiyeen shuruudahaasi ayaan isla fiirinaynaa. okay, 3dii ugu koreysay waa kuwaana Soomaali. marka kan u koreeya aan sii eegno ku dhufanaynaa, kligaan siinaynaa, waxa noo soo furmaya qaybtiisa noo soo furmaya. halkan sida u jeedo 2 qayb u kala qaybsan. qayb waa qaybta maapka, qaybna waa qaybta caadiga ah ee masawiradii ay ku jiraan. sida u jeedo masawiro qurux badan ayuu halkan soo geliyay. waxaa kaloo sidoo kale markaad aad ku sii dhufato halkan waxaad ugu jeedaa magaca. hadday maxaan niri ereyga koowaad wuxuu u taagan yahay name, magaca wuxuu u qoran yahay sida uu ugu qoran yahay hoteelka albaabkiisa ugu qoran yahay ayuu magacu halkan ugu qoran yahay. haddana qaybtan hoose ereyga kale muxuu ahaa? oo ah addresska. waa kana halkan eeg wuxuu buuxiyay shuruudii kale oo ah addresskii oo dhammaystiran ayuu halkan soo geliyay. ereyga kale u dambeeyna oo P-da ahna muxuu ahaa? phone ama telefoon. halkan eeg 3dii kale oo telefoonka ayuu soo geliyay. waa ujeedaa wuxuu buuxinayaa shuruudihii ayay buuxiyeen.
waxaana u samaynaya waa dadka digital marketing ku shaqeeya ayaa ka caawinaya oo ay dhaqaale ku siiyaan. Dhaqaale waxay ku siiyaan ka yar midka laga yaabo inuu xaysiin uga bixi lahaa haddii sida kuwii aan soo aragnay ay xaysiin Google-ka siin lahaayeen. Marka waxaad heli kartaa qof kaa caawiya oo audit kugu sameeyo. Audit waxa weeye in sida hadda aan u fiirinayay loo fiiriyo oo la eego waxa qaldan iyo waxa markaa saxan in la eego oo la saxo oo shuruudihii Google-ka uu rabay la buuxiyo. Intaa kaliyana aan lagu sii ekeene lagugu sii xiro barnaamijkan oo kale oo markaa qaybta reception-ka lagu saaro si review-gaaguna uu maalinta ka dambeeya uu sii bato. Ka faa'iideyso. Haddii aad u baahan tahay waxaa jira dhalinyaro fara badan oo igu xiran oo laga yaabo inay magaalada ganacsi ku leedahay ay joogaan ila soo xiriir deetana waxaan samayn doonaa inaan eegno sida aan markaa u wada shaqayn karno. Intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgeliyo.